وهشيسكا أنك يا عيسى أنك دنو هشينيني عبد الله صنديرة وحن إرجعك هاجنا هاي إن أنك دحبحت waxaan ku leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha oo ka shaqaynaysa nabadgelyada dalkii lagu igmaday oo ka shaqaynaysana adiga iyo madaxweynaha ku igmadayba ilmaadeen rayaal ma jirto laba uun mid soo gal inaad naga dhex baxdaan oo aniga ciise heshiino oo dawladda naga soo dhex baxdaan inigaabana suuki kaaya diraye annaga iyo ciise waan isnaqaanaa sida loo heshiiyana waan naqaanaa sida colaad loo abuurana waanu naqaanaa laba la iskaga warramo oo la iskaga dab qaadi karana ma nihin dadkii runta u kala sheegayayna ma tihiin madaxweyne maan moodayn inaad cuqdad noogu hayso laba arrimood wasiir tiknoolajiyadeed marka hore anigu wasiirka maaliyadda inuu nasiyaaban moodayay wasaaradii shaxda lagu ciyaarayay gagada xoolaha ee boorama la mid ahayd markay caajisaan dilaaliintu ama dilaalka loo keeni waayo neefafka shaxday ku ciyaaraan gagada markaa wasaaradaasaad noo magacawday madaxweyne waanu ogaanay halkaad naga taagan tahay wasiir aad mid waxaan ku leeyahay haddaad xilkaa qaadatood adigu ku qanacday makaahil ahaan waxaan ku leeyahay madax geelin qaadaayba waa dhiga intaa ku dhaafin maayo rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waxaan ka hadlayaa labada arrimood mid waa arrimaha xaaladda ka taagan gobolada galbeedka awsaaka Cabdalla Sandheere ugu baxay waftiga waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha Cabdalla Sandheere Cabdalla Sandheere wasiir laguma mahadin inaad heshiis ka keento gobolada galbeedka sababtoo ah wax inay xukuumaddu ay is-indhatirayso oo wasiirka arrimaha guduhu is-indhatirayo wasiir ku-xigeenka dastuurka ninka la yidhaaho bucul buuni ee wasiir ku-xigeenka beelaha ciise ah wuxuu xalay sheegay in ay jabhado soo galaan ciise xaqiiqduuna ka sheegay ninkaasi waa ragga abtiyaaladaya ee arrinkaa xaqiiqda ka sheegay een isgarab taagin weeye ma waxa uu markaa wasiir ku-xigeenka ciise sheegayo ayaad Cabdalla Sandheere adigoo wasiirkii arrimaha gudaha oo beeshii dhexdhexaadka noo ahaan lahayd beelaha isaaq ee runta noo kala sheegi lahayda ayaa mar walba inaad wax walba iska indhatirta doonayo xuduuduhu way xiran yihiinoo ma soo tallaabaane waa intii gudaha ayaad mar walba ku qowlaysay wasiir ku-xigeenkaasina hadalkiisa meesha uu yahuud taabtay wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay wasiir way dhammaatay xilligaad ama ciise been u sheegi lahayd ama beelaha gadabuursi aad been u sheegi lahayd amnigii lagu xil saaray ay xukuumadda ku xil saartay adiga cirraba waad ku fashilanteen waayo waa talada Cabdiraxmaan Cirra waxaad fulinaysaa waxaan anaga xaqiiqi isla taabanay wakaa wasiir ku-xigeenka bucul buunina sheegay xalay xaqiiqda sheegay inay jabhado soo galaan oo ciise ay jiraan sidaa daraadeed waxaan leenahay heshiiska annaga iyo ciise annaga dan u heshiinayne Cabdalla Sandheere waxaan irgag haaganahay inaad naga dhex baxdo annagu xaqiiqdaanu isku sheegaynaa kuwii soo galayna buuni baan celi odhani kuwa xagga yagana anigaa taladooda qaadiye Cabdalla Sandheere inaadeer waxaan ku leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha oo ka shaqaynaysa nabadgelyada dalkii lagu igmaday oo ka shaqaynaysana adiga iyo madaxweynaha ku igmadayba ilmaadeen rayaal ma jirto laba uun mid soo gal inaad naga dhex baxdaan oo aniga ciise heshiino oo dawladda naga soo dhex baxdaan inigaabana suuki kaaya diraye annaga iyo ciise waan isnaqaanaa sida loo heshiiyana waan naqaanaa sida colaad loo abuurana waanu naqaanaa laba la iskaga warramo oo la iskaga dab qaadi karana ma nihin dadkii runta u kala sheegayayna ma tihiin waar ama midkaya baad odhan lahayd ama annaga baa gar qaadan lahayn ama iyaga baa gardarrada qaadan lahaa annagaanu wada hadli lahayni wasiir dhibaatada ugu weyniba adiga weeye ta kale waxaan leeyahay qodobka labaad waxaan ka hadlayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan si toos ah ula hadlayaa madaxweyne maan moodayn inaad cuqdad noogu hayso
laba arrimood inaad laba arrimood cuqdad noogu hayso haddaan beelaha makaahilnahay kaama filay midi waa macaaradadaad kula kacday madaxweyne daahir rayaale kaahin wakhtigii ugu dambeeyey macaaradadii inaad impeachment ka keento aad waday ee baarlamanka ciidanka booliska ay kaa soo qufuli jireen eed impeachment maan madaxweynaha u keenayaad lahayd inaad tii noo hayso ayaa maanta horta ii caddaatay waxay noogu caddaatay maanta noomaad quudheen wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda wasaaradda aad beelweynta makaahil waa beesha ugu ballaadhan gobolka awdal oo aan wax indhaha laga qarsan kara ahayn wasaaradda aad geysay waa wasaarad afar waashmaan ay ilaaliyaan oo ay shaxda ku ciyaaraan wasiirka la geeyaana iminka de intii kuwii horead magacawday wasaaraddaasi kuma jirin muuse biixise markuu joogayay wasaarad shaxda lagu ciyaaro wasiirka loo soo magacaabayna aw luuda star wax la yidhaahdo oo gametan lagu ciyaaro moobeelada luuda star la yidhahdo aw ku ciyaaray ahaan jirtay madaxweyne waxaan kuu arkay inaan halka aad naga taagan tahay iyo cuqdadda aad noo hayso maanta aad bay noogu muuqataa haddaan beelaha makaahilnahay laakiin beelaha makaahili weyne waxaan leehay wasiirkana waxaan leehay wasiir adi mid waxaan ku leeyahay haddaad xilkaa qaadatood adigu ku qanacday makaahil ahaan waxaan ku leeyahay madax gelinin qaadaayba waa dhigaa intaa ku dhaafin maayo waxaan arkayey inay dad badan oo beeshayda ah oy degmadii roogga cas loo dhigay degmada quljeed ay ka mid tahay oon ahayn beeshii roogga cas ee madaxweynaha salaan sharaf la siiyey aw madaxweynaheennii qaranku ee daahir rayaale ee 10 sano soo hogaaminayay dalku maanta inaan uga dabaaldegno raaligelin baanu ka bixinaynaa wasiir tiknolojiyadeed marka hore anigu wasiirka maaliyadda inuuna siiyaaban mudayay wasaaraddii shaxda lagu ciyaaraya gegada xoolaha ee boorama la mid ahayd markay caajisaan dilaaliintu ama dilaalka loo keeni waayo neefafka shaxday ku ciyaaraan gegada markaa wasaaradaasaad noo magacawday madaxweyne waanu ogaanay halkaad naga taagan tahay waxaan ku leenahay madaxweyne sidaan kuugu lisnay noogumaad hambay habar yoonisna waxaan leeyahay waar 10kii saneen dalka ka soo talinaynay waxaan niiga eexanay beelaha habar awal beelaha habar yooni beelaha garxajis iyo beelaha habar jeclo sidaa daraaddeed beeshani waa beeshii la mid ahayd beesha habar jeclo beeshaan ku afkeeda ku hadlayaay waa beeshii la mid ahayd habar jeclo ama habar awal ama garxajis sidaa daraaddeed garxajisow idinkuna halkaa cira awna dhigay beeshii makaahil weyne inii dhigmaysay garxajisow waxaan ilaahay beeshii makaahil weyne inii dhigmaysay madaxweyne cira halkuu dhigay iyo halkaanu ini dhignay waad ogtihiin waxaan xaq u leenahay shantahay habar awal heshay waxaanu xaq u leenahay shanta garxajis helay waxaanu xaq u leenahay 4 habar jeclo heshay laakiin ciroy maanta waxaa inoo bilaabantay macaaradad baa inoo kow ah macaaradad waa inoo kow wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu